labadan gabdhood oo mataana waxay ahaan kuwo jir ahaan isku xiran maalmaha ka mid ah labadoodu waxay wada jeclaadeen wiil laakiin wiilkaasi wuxuu jeclaa oo kaliya gabadhabeen markay aragtay inay wada jecel yihiin mataanta yar waxay dareentay hinaansho waxay u malaysay in walaasheeda weyn ay isku dayayso inay ka qaado jecelkeeda dhaqankaas la yaab kale ee mataanta yar wuxuu aad uga yaabay gabadhabeen sidaas daraadeed waxay weydiisatay hooyad in lagu sameeyo qaliin lagu kala furo jirkooda laakiin mataanta yar way diiday in qaliin lagu sameeyo wax walba wixii kasii dareen markii maalin uu wiilka go'aansaday inuu meel fog u safro gabadhawen waxay rabtay inay macsalaamayso laakiin adkaysiga walaasheed yar awgiisa ma aysan samey karin wiilkiina wuu tagay gabadhawen waxay caadiyan fiirin jirtay sawirka ay ka samaysay wiilkaas iyadoo ku fikiraysa isaga hase yeeshee taas ayaa sii kicisay xanaaqii gabadha yareed oo sawirkii ay jexjexday gabadhawen ma aysan dulqaadan karin dhaqankaas mar dambe sidaas daraadeed waxay go'aansatay inay ka goodo walaasheed laakiin dad dhexmartay ayaa keentay in gabadha yar ay dhuunta ka qabato oo ay disho walaasheed si sirtaas loo qariyo hooyadeed waxay ku qasbanaatay in qalin ay ku samayso jirkooda kadib mataanta yar ayaa ka qaadatay booskii gabadha weyneed xitaa guursatay ninkii walaasheeda jecleed laakiin si lama filaana waxyaabo cabsi leh ayaa nolosheeda ka bilowday